waaqa وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan caawa ku eegi doono qaaliladan oo jacayl u qaaday Mursal Muuse isla markaana ay qarso weyday jacaylka ay u qaaday fanaanka gobolada waqooyi ka soo jeeda gaar ahaan magaalada Hargeysa fanaankan lagu magacaabo Mursal Muuse ayaa fanaanada qaaliladan waxay u qaaday jacayl xad dhaaf ah isla markaana ay qarsan weysay barnaamijka guud ahaantiisa wuxuu caawa ku saabsanaa doonaa kulankaasi iyo barnaamijka oon ku falaqay doono jacaylka ay qaaliladan u qaaday Mursal Muuse balse intaana u gudagelin daawadayaal halkani waa Masaal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana iska hilmaamin si aad ula socoto barnaamijyadii aan baahin jirnay iyo kuwii ugu dambeeyay intaba una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena fanaanada qaaliladan ayaa jacayl xad dhaaf u qaaday Mursal Muuse kadib markii dhawaan ay qaaliladan qadka telefoonka kula hadashay mid ka mid ah taageerayaasha ama fanaaniinta ka agdhow qaaliladan kaagdhow aan dhahay Mursal Muuse isla markaana ay u sheegtay inay si aad uga heshay fanaanka lagu magacaabo Mursal Muuse isla markaana ay jeceshahay istiilkiisa socodkiisa iyo intaba dhaqankiisa ay jeceshahay isla markaana ay mar uun ku fakarto inay la wadaagto nolosha waa sida ay qaaliladan u sheegtay mid ka mid ah dadka sida aadka ugu dhow Mursal Muuse qaaliladan ayaa u muuqata mid booska ka riixanaysa fanaanada kale ee lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan oo hadda ah marwada koowaad ee fanaanka Mursal Muuse hadda la joogta ama la nool Mursal Muuse ayaa horay qadka dhexe wuxuu kala ciyaari jiray fanaanadaasi hadda aad u jeedaan sawirkeeda ee lagu magacaabo Qatra Salima isla markaana uu hadda qadka ka saaray wuxuuna booskii hore gashaday fanaanada lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan oo hadda ah ooridiisa qaaliladan ayaa u muuqata mid si aad u ciriirsanaysa booskan isla markaana ka riixanaysa Hodan Cabdiraxmaan balse lama oga sidii arrintani ku saameyn doonto Mursal Muuse iyo sida uu arko sidoo kale Mursal Muuse ayaa la sheegay inuu si aad u danaynayo xiriirka qaaliladan isla markaana laga yaabo inayba u soo jeedo dhankaas magaalada Muqdisho isla markaana uu danaynayo inuu xiriir la wadaago qof ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan fanaaniinta ku sugan magaalada Muqdisho ama xiriirka la leh kuwa Soomaalida ah Mursal Muuse ayaan loo ogolayn inuu xiriir la yeesho isla markaana uu ka tirsan yahay xidigaha geeska iyadoo kooxdaasina ay mushaarka siiso xukuumadda ama maamulka Somaliland isla markaana amarnaba loo ogoleen inay guursadaan qof ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waxaana sidoo kale la sheegaa inaysan maamulka Somaliland aqbali doonin in kooxda xidigaha geeska qof kamid ah uu xiriir la sameeyo fanaan ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya isla markaana uu la wadaago nolol Somaliland ayaa sharcigeeda wuxuu qorayaa in qofkii guursanaya qof ajnabi ah waa sida ay iyagu aaminsan yihiin qofkii guursanaya qof ajnabi ah waa sida ay iyagu aaminsan yihiin inuu soo wargeliyo dawladda Somaliland ama maamulkaasi sida ay sheegeen ama sharcigoodu uu dhigayo waxaan hadda idin maqashii doonaa codka qaaliladan ay u soo duubtay fanaankaasi lagu magacaabo Mursal Muuse iyo sida ay qaaliladan u aragto xiriir ay la wadaagto Mursal Muuse waxaad hadda ku soo dhawaataan codkaasi qaaliladan ay Mursal Muuse uga codsanayso inuu la sameeyo xiriir jacayl isla markaana ay isku soo dhawaadaan booskana uu ka saaro fanaanada lagu magacaabo Hodan Cabdiraxmaan bal la dhageysto codka qaaliladan waaqa maxaad ka og tahay fanaanada caanka ah ee qaaliladan bal haddaba ila yara dhuux qisadan aan horeba loo arag qaaliladan ayaa shaqayl inaba aan caadi ahayn u soo bandhigtay fanaanka naagaha badani ku muransan yihiin taasoo ay tidhi qaaliladan aniguna carafkayga aan qaado bal ila dhegeyso horta cod sira oo laga helay fanaanadan caanka ah qaaliladan oo aan laga filayn arrintan ugubka inagu ah ayaa cod sira laga baahiyey waxayna ballan ku qaaday inay Mursal Muuse u bandhigi doonto jacaylkeedan haddaba sheekaa ahayd tukihii horeba dabloowa halka ay qaaliladanna ku meeraaraysanayso
dhul habaasa oo laga guuray ama geedi meel u maray oo raadkiisa dabayshu aastay. haddaba qaaliladan talow boos lagu muransan yahay ma heli doontaa oo ma hantiyi doontaa? bal fekerkaaga adoo cabiraya horta ila yara dhegayso muuqaal kale oo sir ah oo laga duubay qaaliladan. sababtoo naagiisa badan anigana tarabba ma sarahan marka waxaan jeclahay in ila soo xariirtid haddaad aragtid qofkaan codsi kuusoo dhiibanayso. qaaliladan oo sii wadata codkii sirta ahaa ee laga duubay ayaa waxay tidhi wuu wanaagsan yahay ninka naagaha badan lihi, waayo markuu mid ay isqabsadaan ta kale ayaa ka faa'iidaysanaysa. aniguna sidaa aawadeed ayaan u sheclaaday ninka naagaha badan ku muransan yihiin inaan aniguna ku saddexeeyo oo aan qaybteeda ka qaato qayb lixaadle si aan u helo nin naaga badani ku muransan yihiin. waa arrin aynaan hore u arag, weliba inagu cusub. qaaliladan oo u bandhigi doonta mursal muuse taana kamaynaan filayn, laakiin shacayrku waa wax jira waana jeclaan kartaa. bal aynu ka sugno halka ay ku aroortaye kaga soo noqoto mursal muuse. dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantihiin shanalkeennana subscribe saara. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba. haddaba daawadayaal waxaad dhegaysateen barnaamijka iyo codkii qaaliladan oo dhammaystiran. waxaadna hadda laga yaabaa inaadan si fiican weli aadan u fahmin ujeedka qaaliladan. sida aad ku dhegaysateen codka qaaliladan ayaa wuxuu ahaa inay qofka naagaha badan ama fanaanka naagaha badan ay ka bannaan yihiin jaanisyo badan, islamarkaana midba midda kale ay ka reexanayso booskeeda. mursal muuse ayaa hadda u muuqda fanaan lagu hirdamayo, ayna ku kala tartamayaan fanaaniintii soomaaliyeed ee magaca lahaa ee la yaqaanay ee weliba kasoo jeeday koonfurta soomaaliya. qaaliladan ayaa hadda ka hor waxay guursatay dhowr fanaan oo uu ka mid yahay liibaan jigjiga oo ay kala tageen, balse waxaan la ogeyn codsigan cusub ay u dirtay mursal muuse siduu uga soo falceli doono mursal muuse. waxayna dadka qaar leeyihiin waxaaba arrintan laga yaabaa inayba ku kala fogaadaan mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan, oo ay hodan cabdiraxmaanba masayr dartiis uga tagtaba mursal muuse ama ay hilfaha u qaato. mursal muuse ayaa hadda waxaa la leeyahay wuxuuba kusii jeedaa carigaas Mareykanka oo waxaaba u dacwoonaysa ama qaadaysa fanaanadiisa ama xaaskiisa hodan cabdiraxmaan. qaaliladan ayaa iyadana waxaa la leeyahay intay mursal muuse gey doontaa Nairobi ayayba joogtaa oo qaxooti ku tahay. dadka qaar ayaa arrintan si kale uga falceliyay. waxaan anaguna qiimeyn doonaa sida adinka aad u soo aragtaan iyo sidaad uga falcelisaan wixii aragti aad ka qabto si aan ula wadaagno mursal muuse iyo qaaliladan iyo dadka kaleba aan ugu bandhigno fikradiina iyo commentiga noogu soo qora. haddii aad muuqaalkan daawanaysana fadlan like saar, sheerta ku qabo, subscribe-ta hana hilmaamin, calaamada gambalaalkana furo si aa ula socoto xogihii ugu dambeeyay ee aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena, ulana socoto wax walba oo ka cusub caalamka. Masal Media waa shabakad warbaahineed oo madax bannaan. waxaan markasta awoodda saari doonaa inaan idin soo gudbino barnaamijyo xiiso leh oo idin raali geliya. fadlan mursal muuse iyo qaaliladan ayaan gambar gaaban ugu fadhinaa iyo sidoo mursal muuse arrintan uga falceliyo. waa bahda Masal Media oo mar kale idin leh waa mahadsantihiin, daawasho wanaagsan. gobannimadu hoyday ilma gabax ka siisay buka soo gurteeno ilkii gaboobiyo carabi u geysoy cadowgii qabteene ilkii gaboobiyo عربي وقيسوي عدوقي قبتيني الكي قبوبي عربي وقيسوي
cadowgii qabteene